toddoba macallin ayaa hal goob lagu soo weeraray mid qura ayaa ka badbaaday lixdii kale waa la dilay haddaba dhacdadaasi xaggee ka dhacday goormaysa dhacday waxaan iminka taaganahay duleedka magaalada muqdisho waxaan ku sii socdaa goobta dhacdadaasi ka dhacday si aad wax badan ugu ogaato fadlan isoo raac halkan waa deegaan ka tirsan Raagacelle 17kii bishii tagtay ee September waxaa weerar lagu soo qaaday 7 culimo ah oo Quraan ku akhrineysay halkan waxaa ku nafwaayay 6 qofood weerarkaasi waxa ka badbaaday oo kaliya hal qof Daahir Maxamuud ayaa lagu magacaabaa shakhsiga ka badbaaday weerarkaasi waxana Somali Cable ay fursad u heshay inay wax ka weydiiso dhacdadaasi sidoo kalena uu sharxo sida ay wax u dhaceen 11 saac iyo baray ahayd saacadu soodkaas aan soconay insha Allah taala wada kulanay maadaama aan soconay salaada aan meel soo dukanay cidii aqrabada ahayd oo naga codsatay wardiga irideera intaan sii galayna assalaamu alaykum aana dhihin ayaa nimankan xoogaa aan weer nagu qabteen qabashadu cidna ma dareemin oo ma arkin oo hadda meel laga arkayo dheer ma jirto xabad iyo qofku ag taagan la ahayd markii ay saacadu intaas heeday dadku waa goglameen insha Allah taala arinku saas oo ahay intii ilaahay nafta ka siibi raba waa ka dhacday intii ilaahay uun reebi rabana waa hareen ma qofaayeen waxaan ahaynay markaas ananka 5 isla socoto iyo 2 aan u nimid 7 saasaan ahayn waa hoyga ay degan tahay maama Xaliime Maxamuud Cadow oo 87 jir ah isla markaana 2 kamid ah culimadii lagu laayay deegaan ka tirsan Raagacelle ay iyadu dhashay quraamada nala saaraya wiilka maxamed la yaraa Sheekh Daahir taabka loo la jirtay quraamada nala saaraya guriyaan ku jirnaa inayaan nugula ashlagay inayaan nugula aslagay Zainab Xasan Cali waxa ay goobjoog u ahayd falkii dhacay waxayna ii sheegtay waxa waaye maraxoonyadaas idinkoo salaada dukanay ee salaada marka baxnay weer nugula soo qabtay culumaduna waa kulansaneed marka guriga gadaashiisa ay soo socda xabadaha lagu bilaabo suudiya lagu hasuubo wiililkaana guriga joogan hooyadood bay Quraan saarayeen amuurtaas iska timid marka dadka culumada kulansanaa muxuu kulankoodu ahaa waxa kulmiyay culumada hooyo kulmsan ay Quraan ay saarayeen marka walaalahay Maxamuud oo Sheekh Daahir iyo Sheekh Maxamuud ay ahaayeen marka iyo ko culumadu u kulansan tahay asal la gogoglay amuurtan iska timiday marka saasay xaasaska ehelka iyo waalidiinta marxuumintii la dilay ayaa dhamaantood si wada jir ah u dalbaday cadaalad awalhu waxa mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nagu kulmiyay meeshan iyada ah oo dhibka uu ka dhacay 7 macallin lagu dilay marka koobaad waxaan u mahad celeynaa dawladda Hirshabeelle waxaan ka rabnaa cadaalad iyo dawladda federaalka marka labaad Hirshabeelle waxaan ka rabnaa cadaalad dalka dawladda ka jirta maanta inay cadaalad samayso oo dadkaas dhibaatada geysteen insha Allah taala ay wax ka qabtaan
cadaaladda ilaahay naloo keeno waa rabnaa cadaaladda ilaahay bani-aadanka hawada xusiisan xaqa ilaahay xusiisan waxay noo keento waa qabnaa. ugu dambeynna dalladda Warmacad ayaa qoysaska marxuumiintaasi soo gaarsiisay deeq lacageed oo ay ugu talagashay dalladda inay kagala qayb qaadato qoysaskan xaaladda murugada leh ee soo wajahday, waxaana markii deeqdu ay soo gaartay qoysaska ka mahadceliyay qaar ka mid ah ehelka iyo waalidka macallimiintii meel qura lagu wada dilay. Warmacad iyagana waa mahadsan yihiin inta ay soo mareen amba dadaal ay qabteen ay galeen. marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa alle, mar labaadna waxaan u mahad celinaynaa beesha dalladda Warmacad oo soo aqooshay agoontii meeshaan macallimiintii toddoba macallimo meeshaan lagu dilay lagu xasuuqay soo qoondays. waxaan u mahad celinaynaa walaalaha Warmacad oo soo booqday dadka dhibka ku dhacay oo marastahay ilaahay idinka jizeeyaan leenahay adduunyo aakhiro waana mahadsantihiin jazaakumullahu khayr. inkastoo dowlad goboleedka Hirshabelle ay hore u shaacisay in dad loo xiray kiiskan, haddana lama oga halka uu ku dambeeyay arrinka. Maxamed Cismaan, duleedka Raagaceelle, Somali Cable TV.